daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqeynta Bollywoodka. Barnaamijka falaqeynta Bollywoodka waxaan ku soo qaadanaynaa inta badan waxa dhacda markay jilayaasha Bollywoodka ay isla socon baxaan inay iskula shaqeeyaan si caadi ah. Balse daawadayaal waxaan fiirin doonaa markay ay dhacdo jilayaal isla socon baxay sidoo kale shaqo koowaad isla qabtay kuwaas oo aan dib dambe iskula shaqeynin. Ma ahan micnaheeda cadaawad dhex taale in ay jilayaashan iskula shaqeyn waayeen mar kale, laakiin calaf ay u yeelan waayeen in film kale loo wada dhiibo. daawadayaal jilayaasha Bollywoodka ka tirsan kuwaas oo aan dib dambe iskula shaqeynin kadib markii ay isla socon baxeen ama filmadoodii koowaad isla sameeyeen waxaa ka mid ah Shehnaz iyo Shahid Kapoor kuwaas oo isla sameeyay filimkii Ishqi Fish oo soo baxay 2003. Shehnaz iyo Shahid Kapoor calaf ay u wada yeelan waayeen in film kale loo wada dhiibo. sidoo kale Shadab Khan iyo Rani Mukherjee ayaa ku soo caan baxay filimkii Raja Ki Aagi Barat kaasoo soo baxay sanadkii 1997. Rani iyo Shadab dib dambe film ay hogaamiye ka yihiin kama soo wada muuqanin. lamaanihii hore ee Bollywoodka Ranbir Kapoor iyo Sonam Kapoor waxay isla sameeyeen filimkii Sawariya kaasoo soo baxay sanadkii 2007. Ranbir Kapoor iyo Sonam Kapoor filim aan ahayn Sawariya in ay wada jilaan nasiib uma yeelanin. Uday Chopra iyo Shamita Shetty waxay door caawiyay ka ahaayeen filimkii Mohabbateen oo soo baxay sanadkii 2000. Uday iyo Shamita film labaad islama sameynin. Kriti Sanon iyo Taqir Sharif waxay isla jileen filimkii Hero Panti oo soo baxay sanadkii 2014. sidoo kale Kriti Sanon iyo Taqir Sharif film kale islama keenin. Akshay Kumar iyo Shanti Priya waxay isla jileen filimkii Sugandha oo soo baxay sanadkii 1991. Shanti Priya iyo Akshay Kumar 26 sano waqti laga joogo nasiib uma yeelan in ay film kale isla jilaan. Baby Doll iyo Digital Kanna waxay isla sameeyeen filimkii Barsat. sidoo kale filimkan Barsat ayaa filimkii ay ku soo caan baxeen Baby Doll iyo Digital Kanna. Digital Kanna iyo Baby Doll in ay film kale isla sameeyaan nasiib uma yeelanin. barnaamijka falaqeynta Bollywoodka waxaan ila socodsiinaa anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. waxaa fududeeyay Som Films. amaana Allah sidaas iyo nabadgelyo.